السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامة أخيارتا ميلول بأدوني ذا كجوبتان وصاحبكين عبد الرحمن وإذن له قلب وناكسن ما شاء الله جوي آد ومعان وقو آد ودقنا مانتا الوجراء نيروبي رنتي مانتا وحي إلى إكاتي واجي اسكول ليدها عمل قبو ما شاء الله جوي آد ودقن سودو هذا وحاوي صاحبكين عبد الرحمن وحانا قد ونسان عبد الشانل waa idin mahad celinayaa marka koowaad marka labaad waxaa idin ka codsanayaa dadka channelkan ku cusub fadlan subscribe saar like saar share dheh asxaabtaada la wadaag comment ka soo bixi as usual okay galabta waxaa idin wadaa ceebti adduunka YouTube lay qaarkood oo marada ka dhacday oo macnaha aan la yaabay ceeboobay qaarayaan yur ceebeysay waxaa laga yaabaa inay la yaabtaan waa run qaarayaan yur ceebeysay qaar afkooda ayaga intay maanta wax dhahaan berina wax opposite ku dhahayaan okay kuwa qabyaalad ka hadlaayo waxaan soo qaadanayaa maanta afar YouTube lay iyo mid asagana wax macnaha aad u xun ku hadlay kaas idinkagama hormaraayo adinkaa rabaa inaad fiirsataan marka hore kadibna inaan ka hadla ma warrabi kaas insha Allah tacaala laakiin waa arki doontiin waxa uu ku hadlay wax niman waaweyn uu kaga hor hadlay wax macnaha qof gaal iyo muslim uu ku hadlay okay qofka ugu horeeyo hadda maanta dhaqan xumada YouTube leyda ama qaab darada YouTube leyda qaarkood maaha kulligood yaan qalad la fahmin kulligood maaha kuwa aad u fiican oo sharaf leh oo hadalkooda miisaaman yahay aad ku jiro kuwa waxaa jirta mar walba weysada ay ka jabto marka kuwaas maanta ka hadlaynaa kuwa marka qaar ay wax ka fakadaan baan ka soo hadlaynaa okay qofka ugu horeeya maanta aan ka soo hadli rabo waxa waaye Fartuun Balbalaarka okay Fartuun Balbalaarka bal noo sheeg maxaa kugu jira maanta maxaa hadal haysaa السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا هرنو سيقال محامانتا كوكيرين نو شك waxaan ka hadli doonaa arin bariyahan social media jirto arin xasaasi leh ninka la dhahayo walaalkee Lee Life Lee Love Lee Life ayaan maanta rabna aan ka hadalno Lee Life sidaan YouTube-kan u furtay waxaan arkaa hadal hinteeda inuu mar walba hadalkayga uu hadalhayo hadina wuxuu dhahay Fartuun waa beenley maxaa beenley ku noqday beentaan u sheegan waa maxay taas ayaa isweydiin mudan maxaa beenley ku noqday beentaan u ujeedaan Fartuun Balbalaarka waxay ka caawanaysaa ninka la dhihi jiray Lee Life kolley wasaa ognahay waa nin ay dad isu xigaan marka qabiil dhinaceeda la dhaho wax kale ma aha hadalkeedana aad ka arki kartaan macnaha si qadarin iyo xushmad u hayso iyo intaan idinka dhaxgelin waxaan maanta idin xasuusinayaa dadka kulley ciyaaraha UFC-ga maalin hore video hore hadaa aragtaan waa kasoo fiirsan kartaan UFC-ga dadka aadka u xiiseeyo waxaa idin xasuusinayaa maanta inay tahay taariikh 7 waxaa ballansan Dustin iyo Khabib waa nin muslim ah u dhashay Ruushka Dustin waa nin macnaha American ah oo Mareykanka u dhashay marka ciyaartooda caawa dhacaysa waxyar adiga waxaan u maleeyaa 3 saac kadib after 3 hours inay dhacayso waa ciyaar aad u kulul waa champion versus champion laba qof oo champion isku baxayo marka dadka ciyaarta xiiseeyo yaan loo dayma la'aanin ninka wajigoodii waxood inuu arka rabana ila fiirso waxyar ayagoo sabir la iska qaadayo ila daawo ما شاء الله وأجيدان وحنلاقي خبيب قول إن شاء الله تعالى هرمر وعن خبيب وحير مركاين كغشيغو تضوي لواتن كولانو عياري تضوي لواتن كجيم أو سو عياري وو ودراي
macnaha waa 27 o 0 mara laga raayay 0 marna macnaha draw galay oo macnaha ama bareej barbardhac u galay 27 mar wuu soo raayay waxaan leeyahay maasha Allah waa nin muslim oo ku farxayna hore u socon leenahay waa Russian dadka ma kaftamaan Russianka ma kaftamaan gaalada Russianka waxay ku caayaan waxay dhahaan big body small brain I don't know waxay ka wadaan ayaga u taala okay waxaan hadda idin wadaa Lee Life oo dagaalkii ayaan hore ka dhex jiray Ismaaciil Xaaji iyo Xasan Top ka hadlayo Lee Life wuxuu u muuqdaa inuu dhinac la seexdo ama dhinac u barbar hal dhinac inuu u janjeeray waxaa arkaysaa isagoo Xasan Top aad u faaninayo isagoo dhahay waa nin macnaha noocaan ah waa nin noocaan ah waa nin caan ah waxa noocaas Ismaaciil ma garan jirin waxaas isagoo dhahayo runtii qof YouTuber hadaa tahayna labada qof oo dirirta haduusan dagaalka adi markaas ku joogin wixii hadalka ah wixii kula quman wixii xumaantooda iyo wanaagooda waa soo sheegi kartaa laakiin ma aha inaad dhinac la safato oo qof dagaalka aad dhinaciisa ka soo gasho dhinacna aad macnaha riixdo Lee Life meeshaas uu ku ceeboobay waxa uu sheegayana wax yar ila fiiriya Xasan Top marka runta sheego waa nin hal abuur leh iyadoo been la sheegaynin أنا نيجي أنا دكان لوي ما كسين هذا رنتو نيجي ما أقنعني حسن طبعا كساني حسن طبعا داون جري أركي جري إسان كبرت أنا هان إسان كبرت نيكاس أفهمت أنا وملا إسان كبرت ما حكوا صهري مركا أركي إنه وريه هاي نكلم كسينين لكن حسن طبعا أي شيء أفهمت أنا وملا أوكي واد أركتنا في الآية sidoo ninkaas amaanta ugu qubeynayo ninkan kalena ma aqaano runta hadii laga hadlo waxa uu leeyahay waa arin laga fiican yahay okay Lee Life waa nin noocee aniga Lee Life nin normal ila ma nin abnormal maskaxda xoog looga jiro ilayahay okay si hadalkeyga aan proof u sameeyo waxa uu Lee Life sheegayo oo TikTok uu ku sameynayo adinkana ila daawada mar labaad wariyaa reer TikTok waa waalintii horta waxaan rabaa in la hadlo لما قلت لي ايش ما يسوق جرو وحنا يا جرير مع سوق لي تيك توك ما جرير سوق له كلها ورنا على يو ورد كيف كياله تيك توك او جدين جرير لا اسكله مردم بلا كومنت كي يصدوا تيك توك دم بالحرا والله بلاد لا واني دلا لما قلت لي ايش وص لما قلت لي اليوم واحد رنقاش واحنا هلي بيدك واي نعرض ورد كيف كياله اي حاول وريريم به تيك توك ما تغني وريا افريكانا كان تيك توك انا افريكان سنجلود يا غاي هذيك وحي شيغسين لما قلت لي رشوس جرير سموي جرير كموي ما لهم كفرت بحا غايسا تيك توك وحن كجعلاي والو كفرت بحا معنا ها وانا فرت بحا ابو هذا قومت رك كجرتا قومت ابو okay waad aragteen runtii waxa uu ku hadlayo wax laga xishoodo waa wax macnaha dadka aan la soo hor fariisanin waa wax macnaha qofka bini aadamka hadaa tahay qof caan ah oo YouTube ku jiro ama social media ku jiro in afka qalbigaaga door wax xumaado dad iska wada jirana jiro dad nadiif ah afkooda iyo calooshooda nadiif ah jirto marka waxaas inaad intaas oo kun oo qof aad ka hor sheegto dadka aad caanaysa qaarkood inay taageero ku yihiin subscribe ku yihiin ugu waan leenahay waa xasuusinayna saaxiibkeen meelahaasna waa kale ka dhacday iska soo dhis okay waxaan hadda galayaa ninka la dhahan ka hadli doona Xasan Top waxa haday idin sheegayaan yurna ceebeyse waxa laga yaabaa intiina badan inaa la yaabteen sida yaan yur qof binaadan u ceebenaysa okay Xasan Top guriga aabihiis buu tagay wuxuu sameeyay markuu asagoo cunto cunaa horta iska soo duubay xogo maamuus uma ark aniga ahaanteyda aad ba ila xun tahay ama koob dheer oo biyo wadato ama shaax ama wax wadato ama cunto wadato la soo fariiso hadda ka horna waan sheegay waxaaga markaas soo cunto biyahaaga soo cabto social media iyo markaas si maamuus leh u soo hor fariiso cuntada inaad dadka tusiso waliba hadana qaabka loo cunayo dhareer ka dhacayo waxa ka daadanayo wax aad looga xun yahay waxa ka arkaysaa Xasan Top wiil la fadhiyo nidaamyo la dhaho in hilib uu cunay dhulka kaga dhaco uu ka soo qaadanaa saxankiisa oo kor saara hadana waxaas waxa waaye wax macnaha reer baadinimo meesha ugu xumeed waaye wasaq iyo leesinimo iyo araajanimo meesha ugu xumeed waaye okay ninkaas halkaas aga bax nidaamiye Xasan Top wuxuu leeyahay kilibkan yaan yura azumena yaan yura hata tana la azuman
kulaha yaanyuurta la yaabka waxaa waay yaanyuurta baradho ma cunto bal daawadayaal ila fiiriya baradho u dhigaa yaanyuurta. qofka beenta badan ama hadalka badan waxyaabo badan waa laga maqlaa. yaanyuurtu baradho u dhigaa ma cunayso asagoo dhahay hilibu inuu usoo jaro isku dayaa intuu hilibka ku maqnaa yaanyuurtii waxay sameynaysaa baradhadii bay cunaysaa. midkii saaxiibkiisa kuwa laba la cunteynaysa mid ka mid ah nidaamyada mid kilibka dhulka ka dhacay aan sheegayay wuxuu leeyahay xasan tabahashi baradhadii way cuntay maxaa baradho fiican oo qatar ma siisa camal wax noocaas ah. macnaha hadda qof beentiisa uu iska qarsanaa marka hilib u dhigaa yaanyuur oo baradho cunaysa daa hilib usoo dhigtan hilibkeed obvious hilibkay qaadanaysaa marka yaanyuurtii hilibkay qaadatay xasan tob yaanyuurtii marka baradho ma cunayso way ku beenaysa hortiisa ka cuntay ila daawada. maalin wanaagsan sida arkaysaan mukulaal aad u qurux badan ayaan ku casuunay zab waa kaas laakiin mukulaasha hal dhibaa jiro baradho ma cunayso iyada fiiriya baradhaa siinaa hadda fiiriya ma cunayso fiiriya okay hilib qurux badanaa siinaa hadda fiiri mukulaasha laakiin ma cunaysaa daawadayaal ila socda ma jeedin way cuntada baradho qurux badan eedno okay haddaa arki jirteen bariis caadi la cunayo abas albaafa maxaa leedahay waa ujeedaan awa ninkii dhaha yaanyuur hilib ma cunto waxaan leeyahay baradho ma cunto sorry yaanyuur baradho ma cunayso bla 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 awe yaanyuurtii baradhada hortaada ku cuntay hadalkaagii kugu beenaysay waana ku ceebaysay runta haddaa hadal badan tahay waxa walbana afkaaga uu kasoo baxo meelahaasaa kuu dambeysa waxaan leeyahay qof walka dadka waxa aad ku hadlayso especially markaa wax iska duubeyso oo aad rabto inaad dad usoo gudbiso waxa aad ku hadlayso wax qiyaasan ha ahaado iskana ilaali wixii afkaaga kasoo baxayo wax afkaaga kasoo baxaya mideeda kale social media hor fadhida ayuu usoo baxeen waxa daacadda ka ah afkaaga kasoo baxo. okay kilibka ugu dambeeyo aan rabo maanta inaan idin tusiyo waa aniga ahaan asbuucan youtube-leyda qofka ugu akhlaaq xumaa asbuucan hadda lagu jiro youtube-leyda kooda ugu akhlaaq xumaa koobka doqonnimada youtuberada wigan aniga kulleyba waa guddoonsiiyey haddaad kilibkan fiirsataanna waxaan hubaa in badan oo idinka mid ah inay igu raacayaan koobab kale ugu soo darayaan ee doqonnimo hadalkiyaan idinku badinin nuur weersho waxa uu ku hadlayo ila fiiriya. والله نكان نكان هوري bartanib ani had si ahayd ani boqorkii hadda سيتاي مرخان أدوي سيتاي مع هذا boqorkii حسنة عفوف أدوي سواي may waxbaa عفوف تيجي هذيك waraad uu sheegay nin kasta dabacad gooni uu qaabi dabacad gooni uu leeyahay wax ma kacsan karaa nartana ay safura boqol gomus ولكن هذا أنا بعد نسابات كنت تريد سيدي المقبيع okay waa aragteen kulley wuxuu ku hadlay qofka doqonka markaan leeyahay waxa uu dhahay intiinan maqlin inaa idin sheegaan rabaa idinkana dib ugu soo ceshan kartaan kilibka wuxuu leeyahay hebel waxaan ka codsan lahaa naagtiisa ani ha isiiyo seriously wax qof weyn uu ku hadlamay waxaas kulleyba koobka doqonnimada waan ku siiyey videogan intaasaan kusoo gabagabeynayaa dadka i daawado mar labaad waa idiin mahad celinayaa fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe saar like saar share dheh asxaabtaada la wadaag comment kasoo bixi as usual waa anigoo ah cabdulraxmaan idinkala soo socodsiinaya hadalkan cabdul channel waxaa idin leeyahay see you when you see me salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye